السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa Aqoonsoor Academy koorsada ABC English oo aan si online ah ama habka fogaan aragga aan u bixino. koorsadan waxa dhigta oo ka faa'iideysta aqoonta iyo casharrada ay koorsadani ka kooban tahay arday aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo daafaha adduunka kala jooga. waxaan ugu talagalay koorsadan inay u noqoto aasaas fiican iyo sees adag qofka doonaya inuu luqadiisa Ingiriisiga uu si fiican u barto u dhiso una kobciyo. wuxuu heli doonaa dhammaan fursadaha uu ku kobcin karo luqadiisa Ingiriisiga isagoo oo baran doona vocabulary-ga, isagoo oo baran doona ereyada dhawaaqooda, isbeelinkooda ama higaadintooda iyo isticmaalkooda. sidoo kalena uu baran doono Englishta uu sida maalinlaha ugu baahan yahay si uu u isticmaalo markaa shaqooyinkiisa tusaale ahaan wax alaala wixii kale uu u baahan yahay. haddaba haddii aad tahay qof baahi u qaba ama u baahan inuu luqadiisa Ingiriisiga horumariyo amaba uu luqadda Ingiriisiga barto, waxaan kugu dhiirigelinayaa oo aan kugu boorinayaa inaad isu diiwaan geliso oo aad nagu soo biirto. haddii aad garanayso cid asxaabtaada ama family-gaaga amaba aad la jeceshahay adigu inay luqadda Ingiriisiga ay markaa bartaan amaba ay hor u mariyaan, iyagana waxaan kugu talinayaa ama kugu dhiirigelinayaa inaad la share garayso videoga ama muuqaalka oo aad la wadaagto si ay channel-kan iyo fursadan uga faa'iideystaan oo ay noogu soo biiraan ardayda cusub ee aan u qaadan doono bishan horaantiisa. waayahay waxaan kusii socon doonaa markaa casharkeena inaan hore u galo. casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay vocabulary. vocabulary-ga amaba ereyadu ama xaddiga aad ereyada ka taqaanaa luqad kasta muhiim bay u yihiin. luqadeenan Ingiriisiga marka aad doonayso inaad horumariso ee aad doonayso inaad si fiican ugu hadasho amaba aad doonayso inaad si fiican u qorto, haddii lagugula hadlo amaba aad daawato amaba aad degeysatana aad si fiican u fahanto, waxaad u baahan tahay inaad muhiimad weyn siiso vocabulary-ga luqadda Ingiriisiga. waxaan uga jeedaa inaad taqaano xaddi fara badan oo luqadda Ingiriisiga ereye ka tirsan ah. ereyadaasi markaad baranayso waxaad u baahan tahay saddex wax inaad samayso. inaad ereyga marka hore taqaano macnihiisa, dhawaaqiisa iyo higaadintiisa. tusaale ahaan halkaa erey baa ku yaala. ereygaas marka aad doonayso inaad ku dhawaaqdo waa inaad taqaanaa dhawaaqiisa saxda ah. waa inaad sidoo kale taqaanaa dhawaaqiisa saxda ah si aad u fahanto markuu qof ku hadlayo amaba uu qof akhriyayo. waxaa sidoo kale muhiim ah inaad taqaano markaa higaadiisa, sidee loo qoray markuu qof ku hadlo ama markaad adigu doonayso ereyga inaad qorto si aad u qoraysaa. marka waa maxay pronunciation, ereyga dhawaaqiisii, meaningkiisii iyo spellingkiisii, higaadiisii ama higaadintiisii. marka ereyadaas ayaan baran doonaa. sidoo kale casharkeena waxaan ku baran doonaa inagoo isticmaalayna oo ereyadii si maalinlaha u isticmaalayna, yacni inagoo jumlada ku sameynaa ama sentences inagoo isticmaalayna oo adeegsanayna marka ereyadii. markaa saddexdaa barato haddii aad halkaas ka dhigto faraha ka qaado amaba aad ka hadho kuma anfacayo. waa inaad isticmaashaa, waa inaad si daily ama si maalinlaha inaad u isticmaashaa. waa in markaad isticmaasho ee aad adeegsato ayuu kama noqon doonaya markaa luqadaada Ingiriisiga ee aad sida saxda u taqaano. markaa waayo ereyga ugu horeeya waa maxay? manager. manager. ereygeena labaad teacher. teacher. ereygeena saddexaad doctor. doctor. ereygeena afraad nurse. nurse. ereygeena shanaad baby. baby. ereygeena lixaad beach. beach. ereygeena toddobaad friend. friend. ereygeena siddeedaad pharmacist. 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 ereygeena sagaalaad colleague. colleague. ereygeena tobnaad neighbor. neighbor. marka ereyada Ingiriisiga marka lagu dhawaaqayo waxaa jira waxa la syllable ama dhawaaq. shaqalada ku jira ereyada Ingiriisiga baa u sameeya marka dhawaaq. waxaa laga yaabaa kelmadiina yeelato hal dhawaaq. tusaale ahaan car, gaariga oo kale, car, qalinka, pen, hal dhawaaq baan sameynaya. laakiin erayadan waxaad arkaysaa inaan maxay sameynayay dhowr dhawaaq, syllable. waa maxay? waa sound of vowels. marka tusaale ahaan ereygan manager waxaa ku jira markaa dhowr shaqal baa ku jira. shaqaladaas ku jira waxay sameynayaan markaa codad kala duwan oo laba ama saddex ah. tusaale ahaan manager waxaan sameeyay saddex dhawaaq baan sameeyay. marka wayna saa u baranaa casharkeena ama course-keena waxaan ku baran doonaa markaas waxyaabahaasi sida saxda loogu dhawaaqayo ereyada. manager, teacher, doctor, doctor, nurse,
baby baby beach friend friend pharmacist pharmacist colleague colleague neighbor neighbor saasay marka ereyada ugu dhawaaqaynaa manager waa maamulaha qof meel maamula tusaale ahaan meherad ganacsi ama company teacher waa macalinka doctor waa dhakhtarka nurse waa kalkaalisada ama kalkaaliyaha baby waa nuunaha beach waa xeebta friend waa saaxiibka ama jaalaha pharmacist waa qof farmasiila oo farmasi ka shaqeeyo dawooyinka iibiya colleague waa qofka shaqada saaxiibka ku tihiin yacni aad shaqo wadaagta tihiin neighbor waa jaarka ama deriskaaga ereyadaas markaa macnahoodu waa kaa waxaa lagaa rabaa adiga markaas inaad ereyadan intaad dib usoo qorto aad adigoo muuqaalka iska baktinaya aad isku daydo markaad ereyadii si fiican marka hore u barato inaad dusha ka qori karto si aad markaa u horumariso higaadaada ama isbeelinkooda oo tusaale ahaan aad xaraf xaraf u qorto m a n a g e r aasaa u qorto markaas oo adigu aad barato markaas higaada adiga ayaa si fiican markaa isu bari kara waayahay iminka markaa waxaynu geli doonaa waynu hore ugu sii socon doonaa inagoo ereyadii isku dayna inaynu isticmaalno ereyadii oo u isticmaalana maxay jumlado ku isticmaalana ama jumlado u adeegsanayna si aynu markaa usii fahanno markaas waayahay qaybtan casharkeenna waxaanu isku dayi doonaa amaba aynu ku baran doonaa isticmaalka aynu isticmaalayno amaba sida aynu isticmaalayno vocabulary ama ereyga aynu barano ereyga markaynu saddexdii wax ka baranno macnihiisa aynu barano waxaa laynooga baahan inaynu isticmaalo sida halkan ka muuqatay anigu aanu isticmaalayo ayaad markaa aduguna u isticmaali doontaa waxaad isku soo dayi doontaa sidoo kale intii ku hadhay amaba intaan anigu ka tegey inaad sidan tusaalaha anigu aan u sameeyo kale adiguna aad usoo isticmaasho markaas way horeynu gelaynaa markaa oo horeynu ugu sii soconayna waxaad xasuusnaataa markaa sida iyo qaabka oo aad u dhugataa qaabkaan maxay u isticmaalay ereyada tusaale ahaan waxaan yidhi simple dialogue waxaan ka soo qaadanaa inaynu ingiriisigii qof ku hadlayno simple dialogues wada sheekaysiyo roos ka fudud way xasan I would like you to meet my manager Mr. Adam qof baad tusaale qof la hadlay saaxiibkii buu la hadlay wuxuu ku yidhi xasan I would like you to meet my manager Mr. Adam xasano I would like you to meet waxaan doonayaa inaad kulantaan ama asbarataan my manager Mr. Adam maamulahayga Adam ereyga soo baranay muxuu ahaa manager he is my manager this is my manager I would like you to meet my manager Mr. Adam tusaale ahaan laba qof baynu isbaraynaa marka introduction ama introducing people dadkii baynu markaa maxay isbaraynaa saasay markaa u adeegsantaa oo meelahaynu uga baahannahay ee aynu tusaalaha kusoo qaadan karnaa jumladan baa markaa ka mid ah xasan I would like you to meet my manager Mr. Adam waxaan jeclahay ama waxaan doonaya inaad isbarataan oo aad kulantaan maamulahayga Mr. Adam this is Rahma she is my teacher this is Rahma tani waa Rahma she is my teacher waa macalinkaygi يعني وا معلمة ضيق this is Rahma tani waa Rahma she is my teacher waa macalinkaygi she teaches me English ingiriisiga ayay dhigtaa ama she is my science teacher waa macalinkayga science-ka I will visit my doctor tomorrow I will visit my doctor tomorrow I will visit waxaan soo booqan doonaa waan u tegi doonaa ama aan arki doonaa oo aan ballan la leeyahay my doctor dhakhtarkayga tomorrow berito يعني dhakhtarkii baan doonaya inaan la soo kulmo oo aan tusaale ahaan kala soo tashado ama kala soo hadlo xaalad caafimaad I will visit my doctor tomorrow I will visit my doctor tomorrow Zahra is a nurse she works in a hospital Zahra is a nurse she works in a hospital Zahra is a nurse Zahra waa kalkaaliso she works in a hospital waxay ka shaqaysaa maxay dhakhtar bay ka shaqaysaa let us go to the beach let us go to the beach let us go to the beach ina mari aynu xeebta aadnay ina mariya xeebta aynu aadnay yani aynu soo dabaalan Ali have you met my friend Ahmed Ali have you met my friend Ahmed Ali have you met hore ma soo aragteen hore ma kulanteen my friend saaxiibkay Ahmed marka waa isbaraysa labada qofna saasay markaa adeegsanaa adiga imika waxa ka rabaa inaad iga daba akhrido marka saan u akhriyo aad u akhrido Hazan I would like you to meet my manager Mr. Adam Hazan
I would like you to meet my manager, Mr. Adam. This is Rahma. She is my teacher. This is Rahma. She is my teacher. I will visit my doctor tomorrow. I will visit my doctor tomorrow. Zahra is a nurse. She works in a hospital. Zahra is a nurse. She works in a hospital. Let us go to the beach. Let us go to the beach. Ali, have you met my friend Ahmed? Ali, have you met my friend Ahmed? waxaan filayaa markaas casharka inaad fahamtay sida loo isticmaalayo marka vocabulary adiga waxaan ka rabaa ama baa isku soo daydaa inaad vocabulary-ga qaybtii hadhay oo ah afartii erey sida aan isticmaalo kale adiguna aad jumlada ugu soo adeegsato haddaba haddii doonaysa inaad qaabkan oo kale luqadda Ingiriisiga u barato ama aad qaabkan fudud ee casriga ah luqadda Ingiriisiga u horumariso adiga oo si online uga dhiganaya Aqoonsoor Online Academy waxaan kula talinayaa oo ugu dhiirigelinayaa inaad lagu soo biirto adigoo nagala soo xiriiraya nambarka shaashada ku qoran sidoo kale haddii aad qof asxaabtaada ama qaraabadaada aad la jeceshahay inuu qaabkan luqadda Ingiriisiga ku barto waxaan kugula talinayaa waan kugu dhiirigelinayaa isagana inaad la share garayso muuqaalka oo aad la wadaagto adiguna aad nagu soo biirto oo aynu fasalada isku aragno mahadsan